Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashir kale oo ka mid ah cashiradan ku baranay Microsoft Excel. Cashirkani waa cashir aad iyo aad muhiim u ah. Waana cashir xoogaa dheer, laakiin aan rajaynayo inaad maaragtay wax badan ka faa'iidi doontaan. Waxa uu ku saabsan yahay attendance sheet sida loo sameeyo ama warqadda xaadiriska. Waxaynu samayn doonaa warqaddan quruxda badan ee hortiina ka muuqata. Haddaan warqadda sharaxno attendance sheet ama warqadda xaadiriska ayaa halka noogu qoran. Halka waxaa noogu qoran serial numberkii. Halka waxaa noogu qoran student name, magaca ardayda. Halkan waxaa noogu qoran gradekii ardaydaasi ahaayeen, yani fasalkii ahaayeen, grade 1, grade 2, grade 3, grade 11, grade 12, nurse. Halkan marka aad waxaa gashan doontaa gradeka aad doonto waa gashan doontaa. Tusaale haddii jaamacad oo kale tahay halkan waxaa ku qoran doontaa department, kadibna halkan waxaa qori doontaa civil engineering, economy, business, marketing, pharmacy, waxaa rabto waa ku qoran doontaa. Yani adiga markaa haykalka guud ee warqadda fahanto, qaabka aad doonayso inaad u samaysato adigaa maaragtay u samaysan doona, oo ama waxay ku saabsan tahay haddaa rabto tusaale ahaan dugsi quraan oo kaleeto xaadiriskiisa ayaa maaragtay ku samaysan kartaa. Halka waa bedeli doontaa marka jaamacad baa rabtaa, college baa rabtaa, shaqaalaha sharikadaada ka shaqeeya ama meheradaada ka shaqeeya baa rabtaa xaadiriskooda kale inaad ku samaysato. Iyadana dee halkan waad bedeli doontaa, qaabkaa rabta u bedeli doontaa. Laakiin muhiimadda waxa weeye in warqadda xaadiriska ama attendance sheet si guud inaan u fahanno ayaa muhiima. Sidoo kale waxaa noogu qoran maalmihii oo ah ilaa 30 maalmood. Bishuna waa bisha June, bisha 6aad. Marka maadaama June aan maaragtay aynu soo qaadanay, halkan waxaynu ka dhiganay 30 maalmood maadaama June ay 30 ku dhamaato. Sidoo kale halkan waxaa nooga muuqda Sunday oo aynu calaamadinay oo ku calaamadinay calaamad casaana. Sababtaan ugu calaamadinay waan baran doonaa. Sidoo kale halkan sidoo kale waxaynu iyadana ka dhignay Sunday baan ku qoray. Sababta aan Sunday uga saaray maalmaha kale oo aynu qalinka casaanka u qoray iyadana waynu sharxi doonaa. Sidoo kale waxaa noogu qoran present, absent iyo holiday waxaynu ka wadno iyadana aynu sharxi doonaa. Halka waxaa noogu qoran marka aynu hoostooda nimaano xisaabaad ayaa noogu qoran. Xisaabaadkani meesha ka yimaadeen iyagana aynu sharxi doonaa. Halkan holidayga hoostiisa 4 baa ku qoran. 4taas xagee ka timid tusaale ahaan kan koowaad oo kale haddaan dhagdhag siiyo waxaa meesha ka soo boodaysa formulo. Formuladaas ama qaacidadaas qaabkeen u samaynay waxay ku saabsan tahay iyo xiriirka kala dhexeeya attendance sheetka ama warqadda xaadiriska ayaynu iyadana sharxi doonaa. Halka waxaa noogu qoran iyadana formulo kale absentiga hoostiisa waa formulada lagu soo saaro absentiiska iyadana waynu sharxi doonaa. Halkan oo kale oo holidayga hoosta waxaa ku qoran formulo kale. Formuladan iyadana waynu sharxi doonaa insha Allahu tacaala. Marka guud ahaan warqaddan ayaynu maaragtay aynu samayn doonaa oo cashirkeena maanta uu ku saabsan yahay waana warqadda xaadiriska. Marka casharkeena ayaynu si toosa u gudagalaynaa inagoo aan waqti iska lumin. Casharkeenu si toos u gudagalaynaa. Waxaynu ka bilaabnaa halkan. Waxaan ku qoranaynaa halkan serial number loo soo gaabshay SNO. Serial number marka qoran halka waxaan qoraynaa student name, magaca ardayga. Waxaan ku xijinaynaa grade. Intaan markaan samayno waxaan tegaynaa halkan sare waxaynuna ku bilaabaynaa waxaan qoraynaa 1 1 2 yani waxaynu qoraynaa maalmihii bisha maalmihii ka koobnayd ilaa waxaan gaarsiinaynaa 30 ilaa 30 markaan qorro. Bishan marka 30 maadaama gaarsiinay waxaan bishan ka dhigan doonaa bil ku dhamaata 30 ayaynu ka dhigan doonaa. Tusaale ahaan waxaa nooga dhigtaa bisha June oo kale maadaama ay 30 ku dhamaato. June bisha markaa June ka dhigano waxaan samaynaynaa waxaan ku xijinaynaa halkan aan imanaynaa kadibna waxaynu ku qoraynaa maalmihii. Tusaale waxaan ka bilaabaynaa Isniin, Monday, waxaan ku xijinaynaa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday iyo ugu dambeyn Sunday oo aan soo gaabsanay SUN. Intaa markaan samayno waxaan ku xijinaynaa waxaan codsanaynaa maalmahan isbuuca 1 2 3 4 5 6 7 maalmood wey.
marka waa koobeynayna bisha dhan ayaynu gaarsiinaynaa. sida marka u gaarsiino waxaa nagu dheeraada 40 maalmood. marka 40 maalmood waa iska tiraynaa. intaa marka aynu samayno waxaa ujeedaan in maaragtay ay warqaddu naga baahday oo xoogaa ay dheeraatay. marka si aynu usoo koobno oo si yacni warqadda ay nagu noqoto attendance sheetku mid aad iyo aad qurux badan, waxaan samayn doonaa waxaynu arrange garayn doonaa ama aynu yaryarayn doonaa seelalka ay ku jiraan qoraaladani ay ku jiraan iyo maalmahan. tusaalahaan hadda kan ay ku jirto 8 oo kaleeto space badan baa ka bannaan. marka si warqadda inoogu soo yaraato waa inaynu space kan yaraynaa. tusaalahaan saan oo kale ayaynu ka dhigi doonaa. marka dhammaan sidaa ma wada dhihi karno, qaabkan ma wada dhihi karno oo saan usoo yaryarayn karno. waxaynu isticmaali doonaa trick yar oo hal mar aynu soo wada yaryarayno seelalkao dhan. marka waxaa samaynaynaa sidaan saa u samayno waxaan samaynaynaa waxaynu dooranaynaa maalmaha ayaynu dooranaynaa iyo nambarada ilaa 30 ayaynu dooranaynaa. kadib waxaynu tegaynaa home, waxaynu soo furaynaa halkan ay ku qoran tahay format. kadibna waxaynu ku dhifanaynaa halkan ay ku qoran tahay auto fit column width. meesha markaan ku dhifano warqaddii dheereeda naga baahsanayd saasay nagu soo gaabatay. intaa markaan samayno waxaan ku xigsanaynaa halkan ayaynu maadaama waxaan u xaadiris yahay ama attendance yahay xaaladdii xaadiriskan aynu soo qoray. tusaale ahaan present oo kale ayaynu halka qoraynaa. present waxaynu ku xijinaynaa absent maqane. waxaynu ku xijinaynaa waxaynu qornay present absent iyo holiday. tusaale ahaan fasax yacni holidaygan wuxuu noo noqon doonaa marka maalinta fasaxa iskuulka laga fasaxan yahay ayaynu noqon doontaa. marka maalintaas tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa friday oo kaleeto, jimcada oo kale inaan fasax nahay oo iskuulkana fasax yahay ayaynu usoo qaadan karnaa. intaa markaynu samayno waxaynu samaynaynaa waxaynu tegaynaa geeskan. horta fartaynu dooranaynaa, kadibna foontiga farta ayaynu bedelaynaa. noocay adigu aad jeceshahay ayaad ka dhiganaysaa. ano noocan aan jecelahay noocan ka dhiganayaa. meeshan bisha ayaan tegayaa waana waaweyneynayaa. tusaale ahaan sidaasaan ka dhigayaa. bishu waa June. kadibna waxaan tegayaa halkan sare waa highlight garaynaya. markaas aan highlight gareeyo waxaan tegayaa meeshan ay ku qoran tahay merge and center. intaa markaan sameeyo waxaan ku qoray halkan attendance sheet warqadda xaadiriska ama af Soomaali ahaan slash warqadda xaadiriska. intaa markaan qorro waa highlight garaynaynaa, kadibna fartaynu waa weynaynaynaa. intaasoo kale aan ka dhigaynaa. farta markaan weynayno waxaan ka bedeli karaa farta qaabkeedaan bedeli karnaa. yani qaabka waa bedelay. tusaale ahaan aniga waxay ii tahay fontigu wuxuu yahay andalus. marka adiga waa bedeli kartaa, waa noocaad rabto waa ka dhigi kartaa. tusaale ahaan noocan oo kale saasoo kale ka dhigi kartaa attendance sheet. adiga le waaye qaabka ka dhigayso. marka aniga laakiin badanaa fontiga la yidhahdo andalus ayaan jeclahay inaan maaragtay aan ka dhigto wax qorto. sidoo kale saddexdan aan tegaynaa ugu dambeeya oo present absent iyo holiday ah. iyagana farta xoogaa baan waa weynaynaynaa, wax yaraan ku daraynaa. intaa markaan samayno waxaynu tegaynaa halkan student name iyo gradeka oo kale ayaan iyadana xoogaa saa u weynaysanaynaa. tusaalahaan awal way yarayd sidana ahayd. marka si aad u weynayso samaynaysaa meeshan saraa tegaysaa 2 jeer baa dhagdhag siinaysaa. qoraalka ayaynu xoogaa ku daraynaa sayskiisa ama cabirkiisa. marka ku daro qaabkaas inoo noqonaysaa. waxaan samaynaynaa oo kale oo noo haray kuwan oo kale aan ka bedelaynaa. marka ka bedelaynaa kalarkaan ka bedelaynaa ama midabka. tusaale ahaan present oo kale waxaan ka dhigaynaa cagaar. absentiga waxaan ka dhigaynaa farcas ama casaan. holidaygana waxaan ka dhigi doonaa far noocan oo kale ah. intaa markaan samayno oo aynu saa u diyaarsano waxaynu samaynaynaa halkan serial numberkaynu qoranaynaa inta ardaynu haysano.
tusaale ahaan 1,2 ilaa waxaa nooga dhigtaa inaan haysano 29 arday oo kale inaan haysano 23 arday oo kale nooga soo qaad. kadib tan waxaa noo geysaa geeskaas qaabka nooga dhig. sidaa markaa samayso waxaa nooga xigi doonta inaynu formulooyinkii qorno halkan aynu formulooyin ku qorro. marka inta aynaan qorin formulooyinka waxaynu samaynaynaa qoraalkan baynu haylaad garaynaynaa, qaabkan u haylaad garaynaynaa. kadibna waxaan tegaynaa meeshan ay ku qorantay butoonkan yar ayaynu tegaynaa, soo furaynaa. waxaa leenahay all borders, borderada dhan yani xariiqi. markaan saas samayna waxaa noo soo baxaysa warqadda noocana oo excelkii ka yara soocan. kadib waxaynu tegaynaa qaybtan sare oo maalmaha ah, iyadana waxaan tegaynaa butoonkii aan soo furaynaa. waxaan leenahay outside borderska oo banaanka ah noo door ayaan leenahay. ama iyadana waxaan dhihi karaa all borders ayaan dhihi karaa, oo wax noo noqonaysa qaabkan noo noqonaysa quruxda badan. warqadii xaadiriska ama attendance sheetkii oo aad iyo aad u qurux badan ayaa maaragtay inoo soo baxday. marka halkan waxa aynu ku qori doonaa oo hadhow geli doona bishan June arday kasta intuu maqnaa ay halkan hadhow geli doonta. tusaale ahaan arday kuwaad halka markaa magaciisa kusoo qorro inta maalmood uu maqan yahay halkan inoo qoraysa 30 maalmood. tusaale ahaan 5 maalmood ka maqan yahay 5 maalmood halkaas inoo soo gelisaa. sorry waxaan ka wadaa inta maalmood uu joogo present weye. halkan absent hoostiisana inta maalmood uu maqan yahay ayaa inoo soo geli doonta. sidoo kale halkanna inta maalmood oo bisha ardaydu ay fasax yihiin ayaa aynu ku qoran doonaa. marka halka formulooyin ayaynu gelin doonaa. haddii aad rabto inaad warqadan u isticmaasho si raf ah oo caadi ahaan gacanta aad ku saxsaxdo ardayda hadhowdii, yacni warqadda qaabkan ayaad inta daabacad ula bixi kartaa. hadhowd halka marka waxaa ku qoran doontaa ardayda magacoodii, fasalka ay yihiin. halkana ardaygu wuu joogaa sax ama khalad waa saaran doontaa. laakiin haddaad rabto inaad qaab digitaala ardayda u xaadiriso oo kombyuutarka ama systemka dhexdiisa aad ka xaadirso oo kale, ama markaa xaadiriska soo qaado aad halkan geliso oo reytyada ardayda halka aad ku xirayso, waxayna u baahan doontaa inaad halka formulooyin geliso. tusaale ahaan ardayda inta maalmoodu joogay formula lagu soo saaro, inta maalmoodu maqnaa formula lagu soo saaro, inta fasax ahayd formula lagu saaro. formulooyinkaas ayaynu isticmaali doonaa. tusaale waxaan ka bilaabinaa tan koowaad oo ah presenti, qofka joogaha ah inta maalmoodu joogo. tusaale ahaan marka waxaan taabanaynaa equal. kadib waxaan qoraynaa count if markaan doorno waxaan soo dooranaa range. halka wuxuu ku leeyahay rangiga soo dooro. rangigani marka wuxuu noqon doonaa maalinta koowaad oo isniin ku beegan hoosteeda meesha bannaan kasoo bilow ilaa maalinta ugu dambayso ah maalinta 30aad ayaynu soo dooraynaa. kadib waxaad taabanaysaa akad ama coma. kadib waxaad taabanaysaa apostrophe. halka marka waxaa qoraysaa maadaama present ay tahay present waxaan usoo gaabsan doonaa p. kadib waxaynu taabanaynaa apostrophe, waxaynu xiraynaa bracketkii furnaa. inta kadib waxaan leenahay enter. halka marka waxaynu ku kaydsanay oo aynu ku samaysanay formuladii ahayd presentiga joogaha ayaynu samaysanay. waxaynu ku xijin doonaa absent, qofkan maqan formuladiisii inta maalmoodu maqan yahay formulada lagu saari lahaa ayaynu iyadana ku xijin. waxaan taabanaynaa equal, waxaan taabanaynaa count if. kadib waxaynu soo dooranaynaa wuxuuna leeyahay rangiga soo dooro maalinta koowaad ilaa maalinta ugu dambaysa ee 30aad ayaynu soo dooraynaa. kadib waxaan taabanaynaa coma. kadib waxaan taabanaynaa apostrophe. kadib waxaan taabanaynaa absenti oo loo soo gaabshay kadib waxaan taabanaynaa apostrophe. kadib waxaan xiraynaa bracketkii. intaa kadib waxaan ku dhufanaynaa enter. waxaynu kala samaysanay formuladii labaad waan ku heli lahayn ardayga inta maalmoodu maqan yahay. okay, halka marka siiroyo ayaa hadda inoo soo baxay oo markaan kusii dhafano formulada inoo soo baxayso. marka waxba hadda siiroyada ku mashquulin. marka aynu meelahan buuxbuuxino ayay halkani isu bedeli doontaa, ayay isbedeli doonaan, xisaab isu bedeli doonaan. equal. kadib waxaan qoraynaa count if, wuxuuna leeyahay rangiga soo dooro. rangigeenu marka
waa maalinta ugu horeysa ilaa maalinta ugu dambaysa. Inta kadib waxaan taabanaynaa comma, kadib waxaan taabanaynaa apostrophe, kadib marka halkan waxaan gelin doonaa kuwii hore waxaan gelinay p oo present u taagan iyo a oo absent u taagan. Tan marka waxaan gelin doonaa maalmahan hoose oo meesha noogu qoran maalmahan maalinta aynu fasaxa nahay. Tusaale ahaan marka inaga Sunday-ga oo kale ka soo qaad in ardaydu ay fasax yihiin, maalinta hadda in ardaydu fasax yihiin, inta kalena iskuulka la imanayo, iskuulka la dhiganayo. Marka maalinta axadda ah ayaynu ku soo qoraynaa haye qaabkay u qoran tahay oo meesha u qoran tahayna waa u soo qoraynaa haye. Sunday marka maxay noogu qoran tahay sun, qaabkaas marka u soo qoraynaa, kadibna waxaan xiraynaa apostrophe-kii, then we will close the bracket. Inta kadib waxaan ku dhufanaynaa equal. Sidaa marka hadda waxaan ku samaysanay saddexdii formulo ayaanu ku samaysanay. Formulooyinka marka aan diyaarsanay kadib waxaynu soo qori doonaa ardayda magacyadoodii. Waxaan ka bilaabaynaa tusaale ahaan Cumar, ardayga labaad waxaa weeye Aisha, ardayga saddexaad waa Yusuf, ardayga ku xiga waa Asli. waa bobsiin doonaa ardayda magacooda si aysan waqti badan nooga cunin. Magacyada marka aan qoro kadib waxaan tegaynaa grade-ka ardaydaas ay yihiin. Tusaale ahaan ardayga koowaad oo kale waa grade 1. Kalaasyada ardayda ama grade-ka yihiin markaan qorno kadib waxaan samayn doonaa waxba ha ku mashquulina ama ha u sii fiirfiirsanina qaabka aan qoray grade-ka. Tusaale ahaan grade 11 oo grade 12 grade 13 oo kale waxaan soo qaadanay sambal ahaan ayaynu maartay isaga soo qaadanay. Marka adiga hadhowdii sida saxda ah waad qoran doontaa ardaydaada kalaaskooda caadiga baad qoran doontaa. Hadda waxaan iska tusaale. Intaa kadib waxaynu ku xijinaynaa oo ardayda marka hadda waxaynu soo qoray ardayda magacoodii iyo fasalladii ama gradeska ardaydu ay ahaayeen. Waxaan ku xijisanaynaa marka inaan calaamadsano maalinta fasaxa ay ardaydu yihiin ayaynu ku xijisanaynaa. Marka bisha waxaa ku jirta 4 maalmood ayaa ku jirta oo fasaxa. Maadaama 4 isbuuc iyo 2 maalmood ay bishu tahay, waxaa ku jiri doona 4 maalmood oo fasaxa ayaa ku jiri doona. Marka maalmaha fasaxa ayaynu soo calaamadsan doonaa. Tusaale ahaan fasaxa waxaynu ku sheegnay hadday Sunday-ga axadda inuu fasax noo yahay. Marka sidaa daraaddeed maalinta axadda ah ayaynu maaragtay calaamadsanaynaa. Waxaynu ka dhiganaynaa farcas ama guduudan ayaynu ka dhiganaynaa. Axadda labaad far guduudan nooga dhig, axadda saddexaad far guduudan nooga dhig, iyo axadda ugu dambaysana waxaa noo dhigtaa iyadana far guduudan. Intaa markaa samayno marka halkan waxaan ku qori doonaa axadda marka buuxbuuxin doonaa maadaama iyada aan loo baahnayn oo ay fasax tahay waynu buuxbuuxsan doonaa. Tusaale ahaan tan oo kale waynu buuxsanay hoos noogu maaragtay noogu siyaadi. Axadda oo kale markaan saas samayno waxaan ka bedelaynaa kalarka farcas baan ka dhiganaynaa. Axadda labaad iyadana sidaas la mid ah ayaynu soo qoran doonaa. waxaa noo dhigtaa far guduudan ama cas haylaad garay. Kadib waxaad samaysaa dhagdhagsi. axaddaas labada axadood waynu buuxinay. axadda ku xigta iyadana aynu buuxino, tan ugu dambaysana iyadana aynu samayno. farta ka bedel waxaa ka dhigtaa guduud ama casaan. Kadib saa isugu qabo axaddana buuxi, labadana isku qabo buuxi. Sidaa marka hadda waxaynu ku buuxinay oo meesha uga saarnay oo aan xaadiris ama attendance aan la samayn doonin maalmaha axadda ah ayaynu maaragtay sidaa uga saaray. Bishan marka 30 ku dhammaato oo Juun ah bisha 6aad ah waxaa fasax aynu ka noqon doonaa siin hore usoo sheegnayba maalmaha aynu calaamadinayo ah 4 axadood ayaynu maaragtay fasax inoo ahaan doono oo aan wax attendance ah aan laynooga baahnayn. Marka axadihii markaan buuxinay halkan maxay noo soo galay maadaama formulada aynu hore u gelin halkan oo formula noogu jirtay waxaa noo soo baxday 4 axadood. Yani halkan waxaa noo soo fuulay 4 kaas muxuu dhigmaa bishan 4 maalmood in ay ardaydu fasax yihiin. Maalmaha marka fasaxa ee bishaana formuladii marka aan ku apply gareyn waxay noqotay 4 maalmood. Marka waxaan samaynaynaa
afartan ayaynu hoos u jiidaynaa si maaragtay hadda yani afartani waa qofka kuwa ardayga kuwaad keliya marka si ardayda dhan ay u noqoto fasaxooda uu noogu muuqdo hoos baan qabanaynaa hoos baan u jiidaynaa ama maxaan samayn karnaa meeshan geeska laba jeer dhagdhagsi sidaa waxaa noogu soo baxay inta maalmoodoo fasax arday kasta uu yahay oo 4 maalmood ah intaa kadib waxaynu samaynaynaa maalmaha caadiga ah marka xaadiriska la samaynayo ardayda maxaa la samaynayaa tusaale ahaan jooge oo kale qofka jooga present ayaa u taagan hortiisa marka waxaan ku qori doonaa b oo ah present qofka maqanna hortiisa waxaan qori doonaa a oo u taagan absent marka halka markaan a iyo b midun ku qorno halkan zerooga ah ayaa inoo isu keen bedeli doonta oo waxay noo noqon doontaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ayay isu keen bedeli tusaale ahaan hadda qofka koowaad oo ah cumar oo kale waxaa kasoo qaadaa inuu joogay maalintii koowaad bishu ay kow ahayd ee isniin tahay inuu joogay waxaynu ku qoranaynaa marka present marka qorano oo inter aynu niraahno meeshan presentiga ayaa waxaa u xisaabsamaysa hal yani hal bunduu helaya maalintaa wuu joogay tusaale hadda inter binary waa ka automatically waxay noqotay meeshani hal okay maalinta ku xigtay buu joogay iyadana oo present ahaa waxaynu qoranay b oo present ah isla meeshii ayaa wax isu bedeli doontaa 2 marka inter niraahno okay wata iyadana 2 ay noqotay okay maalinta ku xigtay buu iyana joogay 3 maalmood isku xigtay buu joogay oo waxaan ugu qornay b automatically meesha wax isu bedeshay 3 maalinta ku xigtay oo khamiista ahayd buu gooyey marka absent baan u qornay meesha marka absentigiisu hadda waa 0 marka maadaama maalinta uu gooyey meeshan waxay noqon doontaa hal balaan eegno inter baan leenahay marka jimcadii buu iyana gooyey oo maqnaa ama gembiyey meeshan waxay noqon doontaa 2 marka inter leenahno marka 2 bay noqotay haye wuxuu joogay isniintii sabtidii waxaan ugu qorray present waxay noo noqonaysaa 4 marka faa'iidada ay leeyihiin ama macnaha laga leeyahay in formulada la sameeyo count if qaabka loo sameeyo waxaan rajeynaa in hadda aad fahanteen tusaale ahaan ardayda kalena saas oo kaleeto ayaa lagu abligaran karaa marka isbuucii koowaad wey kani waa isbuucoodii koowaad isbuuca labaad sidoo kale isbuuca saddexaad sidoo kale isbuuca afraad sidoo kale tusaale ahaan caaisha oo kale maalinta koowaad isbuuca way maqnayd ba tusaale ahaan ka soo qaata waxaa ka dhigtaa e baa taabanaysaa yacni maalinta koowaad way maqnayd maalinta labaad sidoo kale way maqnayd maalinta saddexaad way maqnayd maalinta afraad way maqnayd maalinta shanaad way maqnayd maalintii lixaad way maqnayd marka waxaan u jeednaa in maaragtay aysan inoo muuqan oo gabadh la yidhaahdo caaisha oo aynu u qorray absentiga ama presentiga aynu u qorray waxaa noo muuqata in horteeda aysan formuladii ku abligarismin markaan dhebel kaliga nidhaahno formuladii ma soo baxayso marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen maadaama casharada la socoteen bointigaas inaad fahanteen okay inta aan fahmin marka waxaa laga wadaa yani formulada keliya waxaynu ku abligareynay cumar marka si aynu dhammaan ugu abligareyno ardayda kale soo hartay oo marka halka baxbuxino ee halka isbedbedesho waxaynu taabanaynaa geeskan ayaan 2 jeer dhagdhag siinaynaa kadib formula saas aynu ugu abligarismatay tanaynu tegaynaa presentiga geeskeeda ayaynu dhagdhag siinaynaa okay halkan waxa ugu qortaa tusaalaha marka caaisha waxa u qortaa present oo kaleeto inay joogtay caaisha marka waxaan qoray isbuuca haddaan fiirino hal maalin oo sabti ah Saturday ah bay joogtay oo present u qoran tahay ayay presentigeedu marka waa imisa joogitaankeedu waa imisa waa hal maalin imisa ayay maqnayd absent 5 maalmood ayaa waxa u qoran absent oo a ah halka marka maxaan ku arkaynaa automatically inay formulada noqotay 5 maalmood marka ardayda kale oo hadda 00 ugu qoran yahay marka xogtooda halka ku buuxino waxa iyagana noo soo bixi doona ama automatically meelahan 00ga ayaa wax isu bedeli doonaan xisaab oo qofkii 5 maalmood maqnaa sida caaisha oo kale ayaa 5 usoo geli doontaa kii 20 maqnaa
sida caashoo kaleeto ayay usoo geli doontaa. Marka hadda waxaynu xisaabinay waa maaragtay isbuuca koowaad weeye, oo isbuucii koowaad waa kaas. waxaan lagu soo xiray hadda oo farcasaana. isbuucii labaad waa kan oo waxaa lagu soo xiray hadda. sidoo kale kan saddexaad haddaasaa lagu soo xiray, kan afraad haddaasaa lagu soo xiray, iyo isbuuca shanaad oo 2 maalmood keliya ah. 2 maalmood kadib waxay la micno tahay in bisha 7aad la geli doono. marka tusaale ahaan marka sidaasaa u buxbuuxinaysaa. isbuuca koowaad kale haddaan buxbuuxino hadda kan waxaynu qoray presenti automatically ardayga marka uu qoro presenti 6 presenti ayuu maaragtay ayuu helayaa oo maaragtay u muuqanaysa. marka waxaan rabnaa tusaale ahaan in aan isbuuca koowaad wada buxbuuxino. marka si manuwali ahaana tusaale ahaan waa u buxbuuxin kartaa absentee waad qoran kartaa. laakiin maadaama aan waqtiga ilaashanayno waxaan samayn doonaa hal mar baan buuxin doonaa. tusaale ahaan halkan aan taabanaya qaabkan aan leeyahay saasoo kale aan idhi. marka isbuucii koowaad hadda wayna buxbuuxinay oo maaragtay qof kasta intuu ka joogay waat. marka sidoo kale waxaan samaynaynaa kan noo soo koobiyey control c waxaa noo keentaa halkan control v. isbuuca labaad baan koobiyeyna, kan saddexaadna noo koobi haylaad gari control c control v. okay mar kale soo haylaad garay kan control c halkan oo keen control v. okay si randomly abaynu waxaan u buuxinay attendancy-ga ardayda ee bisha June. marka halkan marka waxaa nooga muuqanaysaa arday kasta inta maalmood uu joogay. sidoo kale waxaa nooga muuqanaysaa arday kasta inta maalmood uu maqnaa. halkanna inta bishaas June ardaydu ay fasaxaayeen oo ah 4 maalmood ayaa inoo soo gelaysa. marka tusaale ahaan haddii halka wax ka bedelno tusaale ahaan qofkanoo kale wax ka bedelnay meeshan presentiga oo absent ka dhignay automatically waxaa isbedeli doona oo ay saameyn doontaa formuladan oo ah presentiga iyo absentiga. tusaale ahaan qof ka mida ayaynu dooraynaa. waxaan dooranaynaa number 11 oo ah farxiya ayaynu dooranaynaa. farxiya markaan doorno waxaa noo saartaa tusaale ahaan kalar gooni ah noo saar, kalarkanoo kale noo saar ama midabka noocaasa. farxiya maalmaheeda attendancy-geeda waxaa noo muuqata inay presentigeeda oo ahaa ama joogay xaadiriskeedu ahaa 24 maalmood inay joogtay, maqnaansheeda inuu ahaa 0. sidoo kaleeto bishaas 30 maalmood ka koobanna 4 maalmood inay fasaxayd farxiyo ayaa meesha inooga muuqata. 4 maalmood marka waynu dareemaynaa ama waynu garan karnaa waa 4 inoo calaamadsan, 4 guduudan ama casaanka inoo calaamadsan oo ah Sunday-ga. sidaasay marka maaragtay noogu soo baxaysaa farxiyo xogteedu. marka farxiyo hadda hal maalmo maqnaa, xaadiriskeedan haddaan mid ka mida aynu ku bedelno absent oo maalin aynu ka dhigno inay maqan tahay, halkan waxay noqonaysaa 23, halkana waxay noqonaysaa maalin absentiisa baa soo gelaysa ama hal maalinoo maqnaansho ah baa soo gelaysa. tusaale ahaan kanaan ka bedelaynaa, waxaan ku bedelaynaa a meesha bid ahayd oo presentiga ahayd waxaan ku bedelnay a, yacni meeshii jooga ahayd waxaan ku bedelnay maqane. marka aan internet raahno halka 24 waxay isu bedelaysaa 23, halka 0-ga ahna waxay isu bedelaysaa 1. okay banaan eegno waxaan idhi enter wakaa waxay la mid tahay farxiyo hal maalin bay maqnayd oo maalinta keliya ah. halkan 24 kale maxay noqotay 23. marka sidaasi la mida ayaa maaragtay qof kaste u fiirin karta. intaa marka aan samayno waxaan tegi karnaa halkan sare ayaa tegi kartaa, yani naashnaashadii baan ku samaynayna hadda warqadda. halkanoo kale waxaa ka dhigi kartaa qaabkanoo kale ka dhigi kartaa kalarkaasaa siin kartaa. kana sidoo kale kalarkaasaan siiyey. sidoo kale waxaynu ilownay oo maaragtay bisha 2 maalmood ugu dambeysay ayaynaan iyagana aynaan maaragtay aynaan buuxin. tusaalahaan kalaan kasoo qaadanayna tusaale ahaan waxaad tiraahdaa control c halka tag control v. maalmaha markaa buuxinay automatically formooyinka iyagana baa iska bedelay, yani 2 maalmood ugu dambeysay waan ilaaway. iyadana saasaan u buuxinaynaa.
marka mid kastoo aan beddesho maadaama formulada aan ku apply garaynay yani xiriir bay la leedahay kale cashirkeena maanta intaas ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu